12 English tenses. 12 dhacdo fal ee Ingiriiska ayaan ka hadlaynaa. Tense ama tenses. Tense waa markuu mid yahay. Tense maxaa la is a form of verb to show the time of an action. Dhacdadu ayaa tense laga wadaa. Dhacdadu waa qaab ficil oo lagu muujiyo aminka xilliga ama waqtiga dhacdada dhacday. Tense macnihiisa maxaan dhahnay dhacdo. Marka aan kala ogaano tenseska maxay u kala baxaan. Tenses waa markay badan yihiin. Tensena waa markuu mid yahay. Saddex qayb oo waaweyn ayuu kala baxaa ama main. The main ones waa ama saddexda ugu waaweyn ayaa past tenses dhacdooyin hore, present tenses dhacdooyin hadda ah, future tenses iyo dhacdooyin dhici doonaan mustaqbalka. Lesson 43 waa cashirkeena 43 dad ku cusub tahay kanaalkan fadlan subscribe saaro casharadana sida loo socotid fiidiyoyadana dhamayso. Hadaad tahay qof luqadda baran rabo buugaada qalinkaada meel ku diyaarso. Cilmi meel lagu qoran lama barto. luqad rabtid inta baratid waa ku celcelis wax qoritaan iyo confidence waxa la jirta. Confidence waa qofka isku confidence waa qofka uu is aaminsan yahay ama awoodiisa ayuu aaminsan yahay ayaa la lahaa. Marka past tense ayaan hore u galeynaa ama past tenses dhacdooyin hore. Dhacdooyinka hore naftirkooda ayaa sii kala qaybsamaan 12 waaye. Marka tiiba saddexdiiba ayadaa sii kala qaybsamay sidaas darteed ayaan u badinay. Halka qeybba 4 ayay leeyihiin. Marka afarta past tense ka isbareena. Past tenses dhacdooyin hore. Past tense waa dhacdo hore. Tensesna waa markay badan yihiin. Marka midda koowaad oo past tense ka mid ah waa simple past tense. Simple past tense. Past waxa la soo dhaafay oo ma hore. Simple na wax iska fudud dhacdo tagtay. Dhacdadaas mar dhow camal ay tagtay ama waa iska dhacdo iska numar leh. He played wuu ciyaaray. He played wuu ciyaaray. Marka past tenses wali ku jirna dhacdooyin hore. Qaybteeda labaad marka ba'da ama bida past continuous tense dhacdo socotay xilli la soo dhaafay. Past continuous tense dhacdo socotay way socotay adiga markii aa ogeyd way socotay wax yar ka hor aad ogeyd way socotay waqtigaas. He was playing wuu ciyaarayay. He was playing wuu ciyaarayay. He was playing with me aniga ayuu ila ciyaarayay. He was playing with me. He waa asiga wasna wuu ahay camal. He was playing with me aniga ayuu ila ciyaarayay. Labayan hadda tii labaad ayaan mareynaa. Tii hore maxay past simple tense ama simple past tense ayda. Tii saddexaad marka oo past tense ka hoos imaanaysay waa past perfect tense. Past perfect tense dhacdo dhamaatay ka hor dhacdo tagtay. Like maxaa laga wadaa laba dhacdo ayaa hal mar isla dhacday. Marka dhacdadan maxay dhacday tu dhamaatay horteeda dhacday. Dhacdo dhamaatay ka hor dhacdo tagtay. Dhacdo hadda tagtay ka hore ayay midaan dhacday. Way fahmaysiin u maleynaa past hore ayaa idinku soo sheegay. Isku day markastana erayada cusub inta meel ku qoratid aad ahdid ku qortid hal page ama page ku ama meel gooni ah ku qortid vocabularies ka ku qortid tii kugu cusub. Marka example kama tusaalaheeda he had played wuu ciyaaray. Marka iyadoo sentence dheer ku isticmaalay ama jumlad dheer he had played before I arrived home wuxuu ciyaaray inta aanan guriga imaanin. Laba dhacdo ayaa dhacday. Dhacdada adiga guriga imaatay iyo tii hore asiga uu ciyaaray. Marka tii afaraad oo past tense ku hoos imaanaysay ayaa ah past perfect continuous tense. Dhacdo bilaabatay waqti la soo dhaafay socotana ilaa waqti kale oo tagay. Like waa fahmaysiin u maleynaa dhacdo bilaabatay waqti la soo dhaafay socotana ilaa waqti kale oo tagay.
like dhacdadan shalay camal ay socotay haddana maanta pia sorry maantana maantana dhacdadii shalay socotay isla maantadan dhacday waqti kale uu tagay ama